السلام عليكم. ههلمامين سبسكرايب يا لايك. sidii sheegayaan warar u dhadhow madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegayo in madaxweynuhu ku xujeeyay shakhsiyaadka u ruucleynaya inay qabtaan xilka golaha wasiirada shakhsiyaad fara badan oo aan lagu tiriyo dadka u diirnaxeen siyaasadda dalka Soomaaliya isla markaana cunaha ku dhaga shacabka Soomaaliyeed ayaa la sheegaya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ku xujeeyay hal arrin oo qura siyaasiyiin fara badan oo qaarkood xildhibaano ah isla markaana ahaa 20 sano ugu dambeysay isla markaana marar badan ka soo muuqda golihii wasiirada ee xukuumadihii hore ee dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in haatan uu ku xujeeyay hal shuruud oo qura madaxweynaha ayaa la sheegay in shakhsiyaad fara badan uu ku xujeeyay inay soo xisaabiyaan hantida haatan ay haystaan guud ahaan kuwaas oo laga bilaabayo guryaha dhaqaalaha bangiyada ugu jirta iyo dhaqaalaha kale ee gawaarida waxaana la sheegayaa in siyaasiyiin waaweyn ay haatan ka biyadiideen arrintaasi isla markaana sheegay inay macquul ahayn madaxweynaha ayaa la sheegay inuu shakhsiyaad fara badan oo caan ku ahaa xukuumadii hore inay ka soo muuqdaan ayaa la sheegay in haatan taasi caqabad ku noqoto isla markaana isaga tagaan kasoo mid noqoshada golaha wasiirada cusub ee dhawaan lagu dhawaaqi doono arrintani ayaa ah midda ugu hadalhaynta badan ee ka taagan guud ahaan caasimadda iyo goobaha lagu kariyo siyaasadda wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan. السلام عليكم. ههلمامين سبسكرايب يا لايك.